dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhinta ay kubashiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya u sameeyay xukuumadda haatan talada dalka haysa. Ayagoo dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta mikrofoonka la dhex qaadnaya waxay halkaasi ka sheegeen arag muddo kordhinta. Ayagoo ka hadlaya dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco arrintaasi waxay yiraahdeen sida tan. aragtidayda anigoo ka hadlaya aftida shacabka dhalinyarada gobolka Togdheer ama magacaygaba Axmed Maxamed Saleebaan ku magac dheer Axmeday waxaan anigu leeyahay madaxweyne garoonkan hore aad uga soo ciyaartay waad ka cabaadi jirtay oo waxaad oran jirtay la kordhin maayo maantana dalka madaxa meel laga sareeyo madaxa meel ka sareeyo la salaaxay ma jiraada dalkii ka madaxweynaha waxaan leeyahay anigu madaxweyne muddo kordhintani dalka rabash bay gelinaysaa war komishinowna waxa leedii igmaday ina muddo wacayintaan xilliga doorashada ku qabsoomaysay dalka ina khalkhal sii galisaan komishino leediima dooran waxaan kala leeyahay muddo kordhinta la kordhinaya waa mid xaq ah dalkuna uu u baahan yahay dalkani anu waxaan oran lahaa yaan la oran baa bilaa la kordhiyay iyo waxaas 5 sano oo dambe ayaan ugu darnay sababtoo ay tahay anagu waxaan u baahanahay qof wax noo qabta ee uma baahnin qof dalka u soo doonta wuxuu cuno ee qof dalka wuxuu qabta ayaan u baahan ninkanina waxaan ku dooranay waa wax qabadkiisa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaan ku dooranayna wax qabadkiisa waxaan ku dooranay magacayga Cabdifataax Jiriye waxaan leeyahay muddo kordhinta waqtiga xaadirka uma baahna waxaa loo arkaa in aan isku kalsoonayn in muddo kordhiso oo walaal muddo kordhin baan u baahnahay doorashadu in waqtigeeda ka dhigtaa ay sameeyeen golaha leeyahay komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayagoo u ka sababeeyay duruufaha iyo xaaladahooda hareeraysan markaana yiri muddo sanada ka bacdi waan doorashada qabanayeen komishanka waxaan oranayaa waxay dabeecad baynu ka dhiganay horta marka komishan kastoo la keeno inuu muddo kordhin keeno maxaa loo diiday in waqtigeeda la qabto doorashada dalka maanta maalin uu ka degan yahay oo ka wanaagsan yahay ma jirto maalin uu ka dhaqaale badan yahay maynu soo marin runtii waxaan kaloo salaamaya telefishinka Sam News oo telefishin ku heelan mar walba adeegida bulshada oo telefishinkaas leeyahay telefishinka waxaan qarnigan runtii waxaan ka hadlaynaa qodob ah muddo kordhintan ay kordhiyeen golaha commission marka anu waxaan leenahay golaha commissionku waxa loo baahan yahay dad bays haya wax dhexdhexaad oo labada qolobo ku qancaan marka waxaan oran lahaa waxaan raacsanahay hadalkii lahaay mucaaradku si adeeg marka doorasho dhamaato hala sameeyo dawlad ku meel gaar ah saasaan oran lahaa marka golaha commission waxna waa degdegteen saas xal maaha marka waxa la isku noqda waa Maxamed Cali Axmed Kaabe wararka telefishinka caalamiga ee Sam News TV magaalada Burco.